qowmiyadan waxa ay degan yihiin gobolka buuraleyda ah ee Sulawesi oo dhaca koonfurta dalka Indonesia waxaana lagu magacaabaa Turaha inta badan waa Masiixiyiin waxaana ku jira kuwa yar oo muslimiin ah tiradoodu waxa ay gaaraysaa 1960 ayay dhulkani soo degeen sida ay taariikhyahanadu ay sheegeen dhulkan ay degan yihiin waa dhul buuraley ah waxaana ka da'ar roobab xoogan waxayna leeyihiin caqiidooyin dhowr ah oo yaab leh waxaana kamid ah in qofka ka dhinta aan la aasin balse meydka qofka dhintay guriga lagu ilaaliyo qowmiyadan dhulka ay degan yihiin ma ahan mid laga xishoodo amba laga cabsada geerida waxayna u arkaan qofka ka dhinta qowmiyadan in haddii guriga la dhiga meydkiisa in qofkii dhintay la karaameeyay lana siiyay mudnaantii uu lahaa inta meydka guriga uu yaalana waa la daryeelaa oo waa laga shaqeeyaa meydka qabiilkan ayaa sanadkiiba mar banaanka u soo saara dadka ka dhintay si ay u xishmeeyaan meetadooda waxayna u xiraan dhar cusub sidoo kale kuwii balwada lahaa waxa la siiyaa balwadihii ay isticmaali jireen waagii noolaayeen kuwa ayaa la siiyaa khamri halka kuwa kalena loo shida ama loo daaro sigaar arrinkani oo dad badan iyo caalamka ku sugan ka yaabiyay bulshooyinka qaar ee adduunka ka go'doonsan calashaan keymaha kunun ayaa iyana siyaabooyin kala duwan ula dhaqma qofka ka dhinto waxyaabaha la yaab kale ee qabiilkan ay sameeyaan waxa kaloo kamid ah in caruurta marka ay ka dhintaan in inta caruurta god loo qodo kadibna xabaasha ilmaha yari lagu daadiyo caleemo dunida inteeda badani waxa ay geerida ku qaabilaan cabsi taasi waxay astaan u tahay in muhiim uu ahaa qofka ehelkaasi uu ka baxay waxayna u sameeyaan aas balse qowmiyadani sidaasi waa ay ka duwan tahay deegaankan buuraleyda ahi ayaa waxa uu noqday mid mashquul badan waxaana mashquuliyay ama soo booqda boqolaal dalxiisayaal ahi waxayna doonayaan dhammaan dadka soo booqda inay arkaan dhaqanka qowmiyadani oo soo jiitay dad badan oo dunida ku kala nool dalxiisayaasha ayaa sabir la gala meydadka banaanka loo soo saaro qaarkood ayaa cabsanaya xilliyada ay sabirka la galayaan meydka halka kuwa kalena ay caadi ay iska yihiin dalka Indonesia oo jasiirado u badan ayaa waxa ku nool qowmiyado badan kuwaasi oo midba midka kale ka daran yahay dhaqan ahaan waxaana yaab leh in dalka sidani ahi uu yahay dalka ugu badan ee islaam ku nool yahay caalamka ugu dambeyntii adigu ma tahay mid ka cabsada meydka sawirse inta garabka qof waa hore dhintay banaanka loo soo saaro sawirse mala gali lahayd